saddex loo adi saddex aan ugu wash saddex waa maxay ciwaanka hadii la galo wax kale lagu arko ma saddex bas wax kale ma taqaaniyo macnaha war saddexda xikmad iyo casharo baa ku duugan dadkuna way dhageystaan oo way ka cashar qaataan adiga maxaa ku soo reexaya saddex ilaahay ma abuurin fiiri habeen iyo maalin cir iyo dhul midig iyo bidix kor iyo hoos lab iyo dhadig aaw saddex sootan waa dadku u sheegayo in loo reeqsan yahay waa badbadisday waxaad wadaa adigu haye ay dhan laga cuno hawada u saar hay ma afreeyan ka dhigaa maya waxba ha afareene tirada dhan barnaamij halna ha nagu soo qaadan afar ha soo qaadan shan xitaa soo qaadan naga daayada dhan naga cuno okay tan ha iga qasin iga leex marka tan ha kugu dambayso wax dambe ha noo keen tan haddii ku qanciso waa sii wada laakiin haddii ku qanci weyso waa iska dhaafa faraha ka qaada okay hay waa diyaar laakiin haddii qanci weyso ma ka aqbalayaani dadka shacabka matalaani haddii qanci weyso waa naga dhaafay hagaag saddex waxa la yiri ninka ragga haday ku badato tala lagu ma darsado hadayba saddexdan ku badbadatay soo laalaabata ninkan tala lagu ma darsado waa laga tashtaa saddexdani maxay yihiin intaan muuqaalka guda gelin muuqaalka like saar sidoo kale gaarsii dadka aan la hadlayo oo aan fariintan u sheegayo waa mahadsan tahay midda koobaad waxa weeye wuu garan waayay ku badbadatay tan labaad waxa weeye wuu gudi waayay tan saddexaadna waxa weeye wuu geli waayay saddexda haday ku badbadato ninka ragga ah waxa la yiraahdaa talo lagu ma darsado midda koobaad oo ah wuu garan waayay ninkan wax kastoo la weydiiyo ma garto haddii maadi wax laga weydiiyo ma garto oo garan maayo maadi kasta wax ka weydiiyo maadi ah ma garanayo diini haddaad wax ka weydii maagto ma garanayo haddaad wax ka weydii maagto waxyaabaha caadiga ah ee taariiqaadka iyo bulshada dhexdeeda ka dhacay waxaas oo dhan haddaad wax ka weydii maagtana iyadana waa ma garto waa ninkaasi ma garto hay sheekh tagood ma ku qancis ku soco okay mid waata midda labaad waxa weeye wuu gudi waayay tan labaad waan kala qaadaynaa laba kala qaadaynaa wuu gudi waayay mar abaal buu gudi waayay yacni abaal qof u galay isagoo gudi kara abaalkii ayuu gudi waayay ninka haddii intaasi ku soo badbadato talo lagu ma darsado dhanka kale haddaan ka eegno waxa weeye xoolo ayuu qof ka soo amaaday ka soo daysaday wuxuu ku keenaa markuu qofkan ka sugayay inuu waqti hebel ay ballameen uu u keeno ma gudo hore uga socdaa keligii maahane dad badan ayuu sidaa ku sameeyey way ku badbadatay waxaa ku badbadatay wuu gudi waayay oo qofkaasi xoolo uga qaaday waana keeni diiday waa soo celin waayay waa qaataa sooma celiyo sidaas buu ku dhammaystaa waqtigiisa iyadoo intaasoo deymo lacago hanti badan lagu leeyahay ayuu duraba iska dhimanaya ninka intuu nool yahay haddii ay taasi ku badbadato talo laguma darsado waa laga aamusaa gees bay ka maraan dadku tan labaadna waa taa midda saddexaad ugu dambaysaana waxa weeye wuu geli waayo arrin ku habboon in la galo oo ama gar ha noqoto ama dhexdhexaadin kale ha noqoto ama yacni in wax lagu biiriyo oo ama fikir ha noqoto ama maal ha noqoto wax lagu biiriyo ah ayuu geli waayay wax kasta oo xal u baahan ninkani ma galo bas waa ka gembinaa ninkani waa nin muuqda oo magac rag leh oo muuq rag leh haddana booskii looga bartay ninka ragga kama soo dhalaalayo wax kale xal u baahan isagu xataa xalkeeda uu geli kara haddii uu isu taxallujiyo adeeg ku taqaanaa uu leeyahay intaasba ma galo waa ninka isaga saddexdaa marka haddii kugu badbadato waa gudi waayo kugu badbadato waa garan waayo kugu badbadato uu geli waayona kugu badbadato ya iska jir marka dambe waa laga urgo'a midda koowaad maxaa u xal ah wuu garan waayo waxaa u xal ah baro waba la yaqaanba daawadeeda waa la yaqaan wuu garan waayo soo maaha horta maadi iyo diiniba baro taa daawadeeda waa haysaa wuu gudi waayo soo maaha wuu gudi waayo waxaa u xal ah waxyaabaha aad soo qaadanayso iska control waxaad bixin kartaa hadday yihiin caadi soo qaado waxaadan bixin karin hadday yihiin ha soo qaado haye tan saddexaadna marmar isku day si aad ragga uga mid noqotid maxaad isku dayay inaad hawshan gasho haddaad rabtid ba halay ilaa nin adigu samadoon ahaa tahay aad iyo aad waa mahadsantihiin halkaa iyo gabagabo hay saaxib ma ku qancis waa mahadsan tahay halkaa ka sii wad ha dhaafin walaahi wax badan baa ka fahmay wax badan xikmado badan baa ilaa ku jiray aniga ma dhageysan jirin moogta kasiranta ka dhageysta tan hore saddex markaa tiraa iska dhaafi jiray laakiin hadda waa ku qancay saaxib waa mahadsan tahay insha allah waa ka baxsaday waa arkaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu